بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يوتيوب كأبوان شولي يا برنامج كي جوكتدا إنه ها الحسوس تفنكي هورا وأيه إن الصوم مرك صاحب أنت أنا برنامج كجدا وقلين هذا نوع عصب تاي فضلا سبسكرايب نوده لايك نوده شير نوده كومنتينج وانو مهم كومنتينج وانتان آخرينه waxaad naga soo dalabtaan ayaan dib u soo sameynaa marka commentiga waa noo muhiim hadaad nagu cusub tahay waayahay barnaamijkeennii aan dib ugu laabto wuxuu inoo maraayay kooxihii waddankan ka dhisnaa waxay ahaayeen 9 oo kooxaha dawladda u shaqeeya kooxaha dawliga ah waxay ahaayeen 9 kooxood horaan kuugu sheegay waa kuugu celinaa kooxahaasi waxay ahaayeen waa beri iftin xusuus dayax danan shantaasi waxay ahaayeen kooxihii ka kala tirsanaa wasaaradda warfaafinta oo waa beri ahayd kooxdii xusuus oo ahayd ururka shaqaalaha Soomaaliyeed kooxdii dayax oo ka tirsaneed ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed kooxdii danan oo ahayd ururka dhalinyarada Soomaaliyeed kooxdii iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta shantaasi koox waxay ahaayeen kooxaha shibilka ah ama shacabka afar koox oo ciidamadu ay lahaayeen jiray afar koox iska fiiri afar koox oo ciidamada heegan horseed onkod iyo halgan afartaas waxay ka tirsanaayeen heegan oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ahayd oo ilaa hadda jirta horseed oo ciidanka xoogga dalka ah oo ilaa hadda jirta onkod oo ciidamada asluubta Soomaaliyeed ah oo ilaa hadda jirta iyo halgan oo ciidanka guulwadayaasha Soomaaliyeed la dhihi jiray ciidanka guulwadayaasha Soomaaliyeed meesha way ka baxeen guulwadahii kooxdii halgan oo ciidanka guulwadayaasha ka tirsaneed baa maqan saddexdii kale oo ciidan way taagan yihiin waayahay kooxihii kale oo shacabka iyagana maxaa ka taagan maxaase ka maqan waxaa taagan hadda waa beri waxaa hadda taagan waa beri danan dayax xusuus iyo iftin afartaba lama haayo maanta la joogo afartaasba ma dhisna kuwii ciidamadana afar ay ahaayeen saddexa ka dhisan iyo waa beri afartaas ciidana maanta ka joogo shanti kale waa baaba'een waxba kama joogaan maantaba marka nasiib haddii dawlad kale oo ay soo dib u soo noolaysa ma aqaan say waqtigii la soo noolayn doona ma aqaan laakiin afartaas hadda baa ka jira shanti kale hawaday ka baxeen waayahay intaas waxaa dheeri ahaa oon idiin sheegay afar kooxood oon idin iri Soomaali Jazz shareero iftin iyo durdur oo kalaabyada ka tuma Soomaa waxa kalaabyada ka tumi jiray oo intaas iyagana la mid ahaa koox la dhihi jiray Tandar sheekadii hadda isugu keen dambeysay Tandar markaan bilaabay ayuu waqtigii iga dhacay oo aan joojiyay waxaan idinka ballan qaaday marka kale xigta aan idin iri Tandaraan idin kaga bilaabi doona hadii Ilaahay yiraahdo marka maanta ujeedadu aan u socdo waxa way kooxdii Tandar maxay ahayd maxay qabatay awood intee la egay lahayd inaan idin sheego kooxdii Tandar Roberto Cavalletti nin la dhahay gitaar ku tumayay oo cadaan aha oo Talyaani u dhashay oo meeshaan la keenay oo qoladii dhisaysay Zara Banzo gabar la yiraahdo aan ka xasuustaa hadda Zara Banzo ayaa keentay qalabkaas iyo ninkaasba iyada soo kireysatay oo keentay qalabkana iyada soo iibsatay oo keentay kooxdaas waxa dhistay gabadhaas la dhigi jiray Zara Banzo waxa organista u ahaa laba organa loo tumi jiray Farax Boorama nin la yiraahdo saaxiibkeeyo hadda Nairobi ku uga iyo nin dhintay oo la dhigi jiray Ustaad Ali Xaaji Maxamuud Ilaahay uu naxariisto asagoo dhintay kitaarka waxa u tumay 5 nin oo Soomaali ah kitaar waxa u tumay Cali Atoore waxa u tumay Macallin Maysara
waxaa u tumi shariif bakaari waxaa u tumi tifow waxaa u tumi shaceeb macallin shaceeb waa nool yahay waxaa ka dhintay dadkaas macallin maysara iyo macallin tifow ayaa ka dhintay labadaas nin ilaahay u naxariisto subxaanahu wa tacaala labadaas nin way dhinteen saddexda kale way nool yihiin shariif bakaari waa nool yahay macallin cali atoore waa nool yahay macallin shaceeb waa nool yahay adiga saddexdaa nin kale ilaahay idinkiisu way nool yihiin way nabad qabaan alxamdulilah wayna joogaan waxaa marka meeshaasi waxaa beyska u tumi jiray rag cajaa'ib leh waxaa u tumi jiray cabdulaahi cadaani nin la yidhaaho ayaa beyska u tumi jiray waxaa kaloo beyska u tumi jiray nin maday la yidhaha maday oo barbarayaashii iftin ka mid ahaa kooxdii iftin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ka mid ahaa maday aa la dhihi jiray maasha allah waa nool yahay isagana sacuudiyaan ku ogaa markii iigu war dambaysay maday waxaa kaloo oo beyska tumi jiray macallinkeenna oo sheekh nuur cismaan maxamed sheekh nuur aboorsa ay ugu yaqaaniin oo madaxa kooxda heegan ah maanta waa madaxa kooxda heegan ee ciidanka booliiska soomaaliya sheekh nuur wuxuu ahaa raggii beyska u soo tumay nin ka mida oo weliba ugu dambeeyey labadaas nin kalaa ka horreeyey maday iyo cadaani aa kaga horreeyeen asaa ku dambeeyey ilaa ay ka burburto oo waddankan uu ka baaba'o oo waddankan lagu kala ordo sheekh nuura beesiista uu ahaa tandar bateriga waxaa u tumaayay mahad abaabakar cabdow bukur yare bateriga uu tumaayay bateri electronic oo faraha lagu tumaayaa jiray waxaa tumaayay mursal oo macallimiintii barbaarayaashii iftin ka mid ahaa isagana boongaha mar waxaa u tumay bisbaas oo isagana iftin ka mid ahaa barbaarayaashii kooxdii iftin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta barbaarayaashii ubaxa kacaanka ayuu ka mid ahaa isagana macallin bisbaas insha allah gruubkaas ayay ahaayeen waxaa sigsofan u tumi jiray oo aalta ahayd macallin shariif istiila shariif isagana wuxuu ka tirsanaa kooxdii iftin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta shariif istiila maanta waa nool yahay alxamdulilah oo nabad qaba oo caafimaad qaba wuxuu dukaan ku leeyahay isgoyska dabka ayuu dawaar oo qurux badan oo aad u weyn oo ku leeyahay dabka kasoo horjeedka saldhigga waa beri ayuu hadda maanta uu ku leeyahay meeshaas odayga waaba iska dhaafiyey muusiga hadda asaga saxophone u tumi jiray kooxdaas tandar iyo kooxdii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta kooxdii tandar markaan muusishinkeeda intaas ay ka koobnaayeen macallin tifow oo macallinka akoorda ahaa allah u naxariistay iyagaasoo ka tirsanaa oo raggaasoo wax la soo qaybsaday macallin shaceeb waa nool yahay macallin shariif bakaari waa nool yahay macallin cali atoore waa nool yahay macallin cali atoore waxaan u malaynaa hadda inuuba joogo soomaaliya inuu baydhabo joogaan buu u malaynaa hadda asaga dadka oo qurbaha galayou ahaa macallinka laakiin hadda uu caafimaad qabaa wuuna nool yahay baydhabo uu joogaa kooxdii tandar ayuuna ka mid ahaa odayga dadkii soo maray ayuu ku jiray insha allah kooxdii tandar waxay ahayd koox soomaaliya ku cusub oo waxay dhigayaan aad yaabayso qalabka ay haystaanna wuxuu ahaa qalab casri oo lala yaabayo hotel ay waxay ku samaysteen wiil club la yidhaaho dhinaca warshadaha hotel ay ka dhiseen oo qurux badnaa oo music ay ka bilaabeen waddankaaba iska burburayooba iska baaba'ay ma ogiye waxay noqon lahayd kooxdaas koox lagu kala tegayay noqon lahayd laakiin waddankiyaaba baaba'ay oo iska burburayoo dib laysugu soo noqon waayey wixii oo waa dhismi lahaana soomaalidaaba iska hortaagana iyagana ma aqaan si goormay caafimaadi doontaa soomaali ma aqaan laakiin ilaahay in leehana dhaafiyo dhibka iyo problemka inay iska hagaagto waa dhici kartaa kooxdii tandar marka ay intaas ahaayeen heesaageeda waxaa ka mid ahaa marka xabiib muraadi weliyow xabiib sharaabiyaa u taqaaniin laakiin idinka xabiib sharaabiyaa dhahdiin xabiib muraadi weliyow heesaaguu ka mid ahaa xabiib sharaab maryan naasir cali heesaagay ka mid ahayd cabdulqaadir nagaash wahaab
asagana ka tirsanaa wasaaradda kooxdii iftin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta cabdulqaadir nagaash waa salaamaya macallimiinteennii uu ka mid ahay oo barbaariyayaasheenii uu ka mid ahaa ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta cabdulqaadir nagaash waxaa kaloo jiray wiilal 3 inay ahaayeen aan u malaynayo oo mid Ethiopian mid Tanzanian iyo mid kale adiga oo Soomaaliga oo ku heesay adigu way ku badnaayeen 3 ruux ay ahaayeen iyo ninkii la dhahay Roberto oo ajnabi waxa ka ahaa afartaas oo raggaas wada ah wax dumar oo ajnabi ma arag laakiin afartaas nin oo ajnabiga ah tandar u heesaa ahaa waxay noqotay laakiin koox khatar ah oo kala kacday حتى رواية بنادري مرتمين وعبد الرحمن فنان إيو أحمد إشار إيو جد الشيخ بشير إيو مريم ناصر إيو جروب كاس ننبا أي كلا شقيين رواية حتى وحان حسوستا علي إدريس نين ليرا علي إدريس أو أصلاً بربارياش كميت وزارة وحبرشة إيو بربارين تكوح دي إفتن كميت علي إدريس والسلامة هادو إمقلايو أما أركايو علي إدريس روايد أو سمي أو لدي جري محمد جور جعل كاكوين محمد جور جعل كاكوين روايد لدي جري وبنادري هذا قطر أهد ويكمل آين هساجي هذا مرينا سل حتى وكجرتي هساجي كأهد هذه روايد هاس بدن حتى تندر مرة على الشقية أنا قلت كي وقتي أو بكر راوعمي هذه isagoo orday miya wax ku dhaceenan u maleynaa isha korkeeda nabar ka gaaray marka bukur ayaa nabar gaaray isha korkeeda miya mase hoosteedan miya nabar gaaray hatta isha way la madoobato way la guduudatay uu shaqeyn waayay ana la yiri lawad heesaan la baroobay isdiri ninka Roberto ahay ninka Soomaali ma ahayn moogtahay wuxuu yiri rabaa sheekada naga dhaaf إذا كلا تموير أنا مو كجري ولا هديب ما هاد أو إيتمين درام نيمان درام من كلام درام إيتما يعني قرب كينا الله قال ورني كان واحد بتسيا هرت بالعرق ما هي أنا قاعد مين هرت فيري لا بروب دي أصلا كان عسنين أون قال إنه كعج جاي ويا بلطمة هاسكي وري مركان تومي دايمون على يجريان هاسكي مركي عن تومي أو وهسكي أو نبضلون أهاي أو رولوين إيو باوسي إيو وحو أهاي هاي ديريري دايمون أو دايمون أو دايمون تارارارارار تارارارار وهس نبضلون هذه موسيقى هذا كركما وحسوس الموسيقى نبضن وهاي أو اسكو حر بدن مركا رولوين والهاي مركا وهاسكي أو أنتوني أو أن رولدي كوكاني أو عدكي صاب قلي ويرسوك جوجي صاب بلاو بالهاسكي وعلى صاب بلاو بسيدي هدنا وحو ربا مركا إن أن باوسكي يرولدي ويقربا تيريري تيريري وين تيريري جا تيريري 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 وحيو اسكو أركي يا عنقا ما بأركينين انتو كيمدور عنقا وابا هايا والصوماليين وابا إذا كوريريو خرال متميسين وحي إذنك ساعة ما موريانا نقول بتانو لا عنق waa sax u yiri laakiin hadana kuma qanacsanaa kari waxaan isla caawa hadii maslax aad korto ama wadana gafiya oo balaayna kala qabsataa ani idinka aan sinacna ma gafaaye adiga niyo wad adiga horta niyada kalsooni gili oo shaqada wad nimayo ama isla keeni weynaaho hadhow balaayna kala qabsataa aniga meeshaas inaan dhintaan ka jeclaa inta maslax inta soo koro ee aan kitaar qabsadoon mikrofoonka soo istaago markaan heesi maago inay wax iga qaldamaan waxaan ka jeclahay inaan dhinto warneeyo ninkan maxaa ma laga dhaa waa lagu qanci waay odaga markii dambe waxa la yiri waa ku qasbantahay ninkii waa kasaanu ka yahay
ninkii aan kaagnayna adaa dhaliil uusan lahaynaad sheegoysaa see lagula dhaqmaa bal waayahay nawadow sidii aan ku dhigaynaa tiyaatar ladane ayaan ka dhigaynay saan u xasuusto tiyaatar ladanihii oo hee derbigeeda iyo wareeggeeda kore dadku ay saaran yihiin shineemada saas meel la kala gala la la'ya ayaa waxaa dhacday dadkii waxaa dhaaf loo soo galay dadkii ay tigidaan naga gooya haddii kale waa gelaynaa taagayiin waana waqti ay nabadi jirto dawladi jirto nidaam jiri saasaa la wada noqdayaan kula tiyaatarkii saas waxba kama maqna dad waa la dhoomaya markii tigidkii haddana laga jarjarayo la soo gelay dadkii saastan tankiyaa la dhaafay habeenkii markii la dhahay Robert diinleeya oo wuxuu isiri asaan kale waa ku ceeboobaysaa diinleeyga oo Soomaaliga leh haddii lagu ceeboobay kaas le iyo tumuyo diinleeyga oo qaadiyay biisaalay hees kala laga rabay diinleeyga uu ku celiyay biisaalay diinleeyga uu ku celiyay war wax kala runaa markii dambe dhagaxaanaaba lagu soo bilaabay دايمون أنتمينا دايمون أموني كان قلدا نكاس هذا فن أو يقانا ما وعن هدي لك قلدا معنا ماله صومالي دان أميسن مجرت معنا ماله وح معنا ماله لا مجرو أدونك مالك يقانا معنا ماله موسيقى سدو يا دان لو كينين ممالتو ما يقوله نكاس روبرتو تدخل حيلا المسلم وين ولا الله ما قان أنا كله ومسلمي أو صوني أو شهادتي واتكذي ما واتكذي ما مغلب واتكذي ما مغلب لكن واسوني ما لسه قادوا نال الصومي والله أعلم بحقيقة أنو ما أغانو إنه إلهي كأقبلين ويدع كرتعنو يعني كدن باب أنو قلوبتي سمعوي ولكن هو إنه الصومي رجي لجوجيا إيشيء أنا صون كيسنا اللي مجوجيني على عموم هبينكي دايمون كيان لطمي markii aan saxay markii labaadaan tumay oo aan saxay mar saddexaad la tumay waa saxay markaas uu ninkan cunugan mucjiza waayo cunugan camaamada ku tuuray maxamed qadar saxsan dhijir camaamada lagu tuuray hebel camaamadiisa lama haysan karo cunuga camaamada lagu tuuray ay gaartay baashi in la yiraahdo ala umum camaamada isku tuurkaas dhacay barnaamijkii wuxuu noqday barnaamij oo khatar ah daraamkiina sidoo odaga rabiyo u dhacay ilaahay bi ma ceebayno markaan soo baxay adiga waa waxa la dhahay cunugan wallahi aakhirkiisa wuxuu noqon doonaa mucjizo waayo ninkan waxa ani iftiin ilaahay ugu ma ceebayno odayaashii waaweyneed maraan la kulmo oo aan la tumayo macallin iikar uu gacanta isii hadda koor taariikhdaas waa idin sheegay haddaad ilowdeen waa idinku celinaa ma arintaas way dhacday macallin iikar uu garabka igu sii in odayaashii kale ay arkaan إلهي معيبينه وكدسي odayaasha dhanna way ii riyaaqeen waa la yaambali ninkan ilaahay ugu macaabeynino markii heeska anigana wixii hamiyaan u haay marka bini aadamka waxa uu hamiyo waxa uu niyad u leeyahay waxaan amaad hesha aad dhaysid haddaad ku dadaasho waa ka mira dhaline fankana wuxuu ka rabaa in aad horta ku adkaysato haddaad ku adkaysato waa gaari heerkii habeenkii markaan gaarnay alxaasil nin barnaamijkan soo dhignay waa soo dhamaynay waxaan iri bukurow ninkan aad u timaysid adiga maayna dad kale ma yaqaan inay jiraanba ma aaminsane garabkiina Allah gal barnaamijkaas xataa ana ka tumay bukur wax badan oo tandar ayaan laga soo maray ala umum kooxii wadankan ka dhisnaa waxay ahaayeen 5 kalabka ka tunta waxaan idinku daray tandar shareero durdur iftin Somali Jazz shantaas kooxood ayaa kalabyada ka tumay oo Soomaaliya kooxii ugu waaweynaa kamid ahaa inta kale waxay ahaayeen 9 group oo kooxii dawladda u dhisnaa ahaa 9kaas kooxoodna waxay u dhisnaayeen dawladda waa 9 iyo 5 oo kalabyadaas iyo ka tumayay iyo aroosyada waaweyn iyo waxaasay tumayeen oo madaxda sare marka sheekadii marka xusuustii fankii hore qaybtii kale oo 9aad ayaan u malaynayaa inay tahay midaan oo aan hadda idin duubay midii 10aadna waxaan idin kaga dhigayaa insha Allah midii Abdul Qaadir Sheekh Ali Usmaan Ilaahay ha u naxariisto subhanahu wa ta'ala ee commentiga aad iigu soo qorteen aan idin duubay 10kaas qaybood ay inoo joogto insha Allah ta'ala ma mar kale YouTube-ka Abwaan Shooli
صاحب هدان نقول عصب تاي فضلا سبسكرايب نوده لايك نوده شير نوده كومنتي قاس نوا مهم هذا ما أنت برنامج كاس إن هذا الضوبة مركلة وحقيقة قصبي ninka saaxiibada saaxiib kamid ah oo commentiga iigu soo qoray saaxiib nooga soo sheekay Cabdulqaadir Sanka iyo wixii aad ka taqaan marka commentiga sidaas uu muhiim u yahay saaxiibada Soomaaliyeedu waa barnaamijyada kale ee YouTube-ka Abwaan Shooli kani waa joogto barnaamijkan xusuusti fankii hore la yira insha Allah taala waana kulmi doonaa hadii Ilaahay yira mar kale iyo mar kale waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaali weyn يوتيوب كأبوان شولي السلام عليكم ورحمة الله